بوم اسku soo laabasho wanaagsan oo yaal timi football dhamaantiin waxay idin ku codsanayaa subscribe like and share maanta waxaan rabaa dhalinyarta oo football aan lacagta gelin in aan ugu faa'iideeyo fursadda ugu muhiimsan oo aad ku heli karto labo player oo wiliba bro players ah sida wada ognahay football waxaa must ah in aad ku ciyaartid defensive fullback iyo anchorman so maanta waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo laba player oo aad ku heli karto mid asoona qarash badan kaaga bixin midna sifiri ah midka defensive fullback ah waxa kaaga bixi doonto football points midka anchorman-ka ahna waxa kaaga bixi doonto ilaa iyo 300 ilaa 500 coins haddaad haysatid waa must waad soo qabsan kartaa so waxaan rabaa dhalinyarta igu xiran channelkayga YouTube-ka in aan ugu faa'iideeyo waa wada ogtihiin football waa must in aad ku ciyaartid defensive fullback anchorman DMF-kaaga waa inuu anchorman ku jiro haddadaan la joogo football waa must yel abadiid adig ku taala okay waxaan ku hayaa anchorman oo dhirirkiisa aad u dheer headha korna ku dhalin doono dhaxdaas ka difaaci doono headha madax ka difaaci doono sidoo kale oo lacag badan kaaga bixi doono san ku sheegay sidoo kale defensive fullback oo stamina dhinac kastaba difaac ka dhisan sadarkiin hadda dhalinyarta ninkan dhalinyarka ah wuxuu soo dhahay defensive fullback meesti attacking fullback kaliya haysta adi kaliya ma ahan ciladan dhalinyar aad u farac badan haysato so dhamaantiina waa idinkaga faa'iideyn doonaa videogan soo daawta saaxib halkaadana marka halkaa joogtid waxaa ku dhufsanaysaa shopka markaa ku dhufsatid football points tag marka football points aad ku dhufsatid kadib players ninkaan u jeedin waa maxaa la dhihi jiray saad aragtiin dhirirkiisana nin iska fiican mana gaabno mana dheer waa dheeryahay dhihi karna weliba so ninkan muhiimadda aan u baahanahay waxaa waaye dhalinyarta badankooda aan haysanin defensive fullback wuu idin anfici doonaa saad u jeegtiin defensive fullback wuxuu ka caawin doonaa saan wada sheegnay dhanka difaaca maxaa la dhihi jiray attacking fullback uu kaaga fiican yahay oo wax badan ayuu ka caawin doonaa defensive fullback waa must inaad ku ciyaartid gamekan so defensive fullback mar haddaadan haysanin labada dhinac oo attacking fullback aad ku wada ciyaaraysid saaxiib halis badan ayaad ku jirtaa oo divisionka ama friendly match meel kasta ha noqoto in markastaba lagu garaaco si ciladaas aan uga hor istaagno adigina aad badisid waxaan samayn kartaa adigoonan isdhibin ninkan soo qaado defensive fullback waaye wax badan buu ka caawin doonaa saad aragtid anigoonan training siinin speedkiisi iyo accelerationkiin 70 waaye mar haddaa bubuuxisid 80 waxa la jiro haddiisan 90 ka gaarin jambigiisa waad aragtaa physicalkiisi wixiisa oo dhan waad aragtaa stamina oo jeeda 81 mar haddaa soo qaadid waxaan la bubuuxiyo aad buu ku anfici doonaa dhalinyarta aanan haysanin defensive fullback waxaa idin leeyahay ninkan soo qaata okay playerka labaad aan idin sheegay oo anchorman-ka ah halkaanaad imaanaysaa waxaa ku dhufsanaysaa slogan kadib waxaad u soconaysaa saa u soco waxaad imaan kartaa halkan meesha markaad joogtid saad aragtid waxaa ku jiro Luis Suarez iyo Luis Suarez aan dhehe kan Luis Diaz ku jiro Cristiano Ronaldo ninka odayga ah ku jira sidoo kale markaa ninka anchorman-ka aan u baahanahay waa ninkan saa u jeedid waa nin dheer daacadda ninkan aad buu u dheeryahay dhaxda wuxuu ka anfici doonaa banooniga dhulka hoose iyo banooniga kore in uu ka difaaco oo banooniga weeftada aba banooniga jafta madax uu kaaga bixiyo dhinac kastaba kornana uu ku dhaliyo madax wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa ninkan Onana la yiraahdo Inter Milan aan dhehe Aston Villa player waaye anchorman so anchorman dhalinyaro badan aanan haysan baa jiro anchorman-kan saa u jeedin waa fursadii aad ka faa'iideysan lahaydeen saad u jeedin statuskiisa aanan training garaynin speedkiisa wixiisa acceleration kicking powerkiisa physical asaaba dhalayba jambigiisi waxa dhan stamina waad aragtaa aanan training garayn so marka haddaad ninkan soo qabsatid one touch pass buu wataa war ninkan blog ninkan xitaa waa raadsan saaxiib muhiimadda meeshan waxaan ku dhihi lahaa saaxiib haddii anchorman la'aan ku hayso ninkan ka raadso laga yaabo 100 coins inaad ku soo qabatid laga yaabo 300 inay kaaga baxdo ilaa 400
so ninkan waxaan ku dhihi lahaa saaxib waa Anchorman wax badan buu ka caawin doonaa oo dadka lacagleyda waa ku garaaci kartaa saa anay aaminsanahay so dhalinyara taas ayaan rabay inaan idinkaga faa'iideeyo sidoo kale ninkan player of the week waa la qaadi rabaa saas ay tahay meeshan waxaa ku jiro ninka la yiraahdo Ousmane Dembele oo goal booger ah Ousmane Dembele goal booger ah ma la dhaafi karaa ani waxaan ku dhihi lahaa ninkan yuusu ku dhaafeen haddii aad Ousmane Dembele big time la keenay aadan haysanin ninkan saaxib waa inaad tuurataa waa monster Mbumo oo goal booger ah halasta waay so laakiin aniga muhiimadda videogan aan u duubay waxaa waaye labadaas player Anchorman iyo defensive fullback waa la isku dhibaa gameka hadda shaxdeeda marka aragtid saad aragtid fiiri day sorry line up kan xalay iskaga baashaalayay mar haddii aan defensive fiiri day waxa ka caawanaysaa Anchorman Vieira-gayga waa Anchorman haye defensive fullback haye waxaas oo dhan oo free ah waay marka oo 200 300 midka defensive waa free laakiin kan Anchorman-ka 200 ama 100 kaaga bixi doonto so ani dhalinyartu waxaan kula talin lahaa halkaas ka wada faa'iideysta saaxiibayaal ka faa'iideysta fursadan camal qof idin sheegay ma jiro ani aan ka ahayn asxaabteyda tihiin maxaa la dhihi jiray waxaan jecelahay mar kastaba wixii faa'iido leh in aan idin soo gudbiyo fahanteen okay marka videoga soo dhameysatay dabcan waad fahantay baleeradii aan kaaga sheekeynayay labadaas baleer waa master waad u baahan tahay haddii aad ahayn dadka eFootball lacagta gelinin waa wada ognahay dadka eFootball lacagta geliyo iyo kuwa aan gelin ayaa badan so waa master Anchorman iyo defensive fullback waa inaad ku ciyaarto labada RB-ga iyo LB-ga laba Anchorman haddaad weysay laba defensive fullback aan dhahay sorry laba defensive fullback haddaad weysid waa master mid ka mid ah in aad defensive fullback ku ciyaarto haddii aadan ku ciyaar maxaa dhici doono dhinaca garabkaas lagaaga soo xaran doono attacking fullback weer buu aadi doonaa inuu baloni soo karooso buu aadi doonaa kadibna waa lagu soo dabamari doonaa bartaas ayaa Janis laga heli doono fursad gool lagaaga dhaliyo fursadaas si aad uga hor istaagto waxaad u baahan tahay in aad ku ciyaarto defensive fullback waxaan rajaynayaa labadaas player in ay idin anfici doonaan dhamaantiin awoowiyaal insha Allah taala haddii aad halkan ila soo gaartay legend baa tahay saaxib ha ila dhaafin subscribe like iyo share ogow maxaa la dhihi jiray YouTube kan wixii eFootball ugu baahan tahay commentiga waad iga soo weydiin kartaa waa idin kaga faa'iideyn doonaa sidoo kale yaanan ilowin wiil dhalinyaro ah oo bartaan YouTube-ka ku xiran ayaa jira markasta Bale training-giisa soo weydiin awoowe Bale training-giisa midka u baahan tahay ma training status kaliya ka fiican oo dhanka weerarka waxa laga dhisay maad u baahan tahay amba midka oo 108 ka dhigayaad u baahan tahay I don't know midka aad u baahan tahay fahmi waayay saas awgeed isoo dheh kaas aad u baahanahay sidoo kale haddii aad u baahan tihiin playerada training ay ku fiican yihiin player kasta statuskiisa waa idin soo sameyn doonaa waan idin la soo wadaagi doonaa haddii aad u baahan tihiin commentiga iga muujiya waan u baahanahay diyaar insha Allah dhamaantiina saan hore idin ku sheegay subscribe-ka hay iga iloowina saaxiibayaal si anigana hor u socod aan u sameeyo waxyaabo badan aan u soo kordhiyo si aan idinkaga caawiyo farsamadaha maxaa la dhihi jiray ama tactica at division 1 season kasta aad ku gaari karto salaam spent all my life holding all of it closely I played it innocent a feel of discontent I'm finally facing it all fearless